bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kulanti wanaagsan meel kasoo joogtaan kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamkood kala socotaan warbaahinta caalami 24 barnaamijkan daawadayaal waxaad ku maqli doontaan Iiraan oo dhibaatooyin xoogan ay kasoo gaarayaan duqeymaha Israa'iil welina wax jawaab aan laga haynin maxay tahay sababta Iiraan aysan kaga jawaabin duqeymaha saraakiisha muhiimka looga dilayo Israa'iil ay ka geysanayso Lubnaan, Syria iyo qaybo ka mid ah waddanka Ciraaq xaaladii ugu dambeeyay caalamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa daawadayaal barnaamijkan uga hadli doonaa mar kale kusoo dhawaada haddaad nagu cusubtay youtube-ka subscribe noo saar haddaa hore nala joogtana fideoga noo shargaree laagna noo saar Israa'iil ayaa la sheegay inay duqeymo ka geysatay xarumo ku yaala waddanka Syria gaar ahaan magaalada Dimashq halkaas ay ku dishay ilaa 4 sarkaal oo ka mid ah ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan wararka ayaa sheegay in sidoo kale duqeymahaasi lagu dilay saraakiil ka mid ah kooxaha taabacsan Iiraan ee saldhigga ku leh waddanka Syria saraakiisha muhiimka ee Iiraan laga dilay ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyada kooxaha taabacsan Iiraan ay ka wadaan gudaha waddanka Syria iyo qaybo ka mid ah Ciraaq inkastoo Ciraaq maalmo dhawatay ka carootay gantaalo ay ku weerartay Iiraan qaybo ka mid ah waddankaasi Ciraaq oo ay sheegtay inay ku weerartay kooxaha argagixiso si ay hadalka u dhigtay haddana kooxaha taabacsan waddankaasi Iiraan ayaa saldhigyo xoogan ku leh gudaha Ciraaq jabhadaha Shiicada ee taabacsan Iiraan ee ku sugan Syria ayaa iyaguna dhowr mar weerar ku qaaday xarumaha ciidan ee Mareykanku uu ku leeyahay waddankaasi Syria waxaana jawaabo ay ka bixiyeen Mareykanka iyo Israa'iil oo lagu beegsaday xarumaha ay degan yihiin kooxahaasi ku geeriyooday saraakiil muhiim ah oo ka mid ah jabhadahaasi isla mid ah ciidamada kacaanka Iiraan ilaa iyo hadda wax jawaab kama bixin duqeymahaasi saraakiisha muhiimka looga dilayo ee ka dhacaya waddanka Syria marka laga yimaado kuwa maalmihii ugu dambeeyay soo noqonaya ee Syria Ciraaq ka dhacaya sidoo kale hore ayaa taliyihii ugu sarreeyay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Qaasim Suleymani Mareykanku u dilay Iiraan aysan jawaab uga bixin jawaab la'aanta Iiraan ee duqeymaha Israa'iil iyo Mareykanku ay u geysanayaan saraakiishooda inay ku dilayaan ayaana dad badani ay ka yaaban yihiin sida falaqeeyaashu ay sheegayaan Iiraan waxay isku dayaysaa inay ka fogaato xiisad cusub oo awood badan oo ay la gasho Mareykanka iyo sila mid ah xulafadiisa haddii ay ka jawaabto duqeymaha Iiraan loo geysanayo ee kaga imaanaya Israa'iil iyo Mareykanka waxay ka baqanaysaa in xulafo badan oo Mareykanku u wato ay ku soo jeestaan dagaaladuna ay ku sii cuslaadaan waxyaabaha Iiraan ay ilaalinayso iyo in xiisadda looga sii darin dhankeeda sida ay sheeganayso iyo sida falaqeeyaashu ay tilmaamayaan Mareykanka iyo Israa'iil danka ma lahan waxayna arkeen inay u jilcantay Iiraan jawaabaheeduna ay aad u gaaban yihiin taasina waxay keentay inay sii bataan duqeymaha loo geysanayo xarumaha Iiraan kooxaha taabacsan iyo ciidamada ilaalada kacaanku ay leeyihiin ee ku yaala gudaha wadamada Syria iyo Ciraaq waxa kale Iiraan laga hayaa waxay tahay inay cambaaraysay duqeyntii ugu dambeysay iyo kuwii ka horeeyay ee Israa'iil ay ka geysatay gudaha waddanka Syria laguna dilay saraakiisha muhiimka ee Iiraaniyiinta dhanka warbaahinta caalamku waxay tabinayaan in banaanbaxyo xoogan ay dhigayaan shacabka Israa'iil kaasoo kaga soo horjeedaan hadaladii ka soo yeeray wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhawaan shaaciyay in marna uusan ogolaan doonin dowlad ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta oo ka dhisan bariga dhexe shacabka Israa'iil waxay sheegayaan Netanyahu ku guuldareystay in amnigooda uu ilaaliyo marka loo eego dhacdooyinka xoogan ee hadda dhacaya iyo duqeymaha maalin kasta ku socda kana soo bilowday 7 Oktoobar dad badan oo isugu soo baxay magaalada Tel Aviv ee caasimadda u Israa'iil ayaana ku baaqay in Netanyahu uu meesha ka baxo xalka kaliya Israa'iil ay haysataan ay tahay in doorasho cusub la qabto taas ay aaminsan yihiin in xal nabadeed ay ku heli karaan daawadayaal intaas ayaynu qodobkeeni koobnaa ku soo afmeeraynaa intaan qodobkan la mid kulmayna xadkeetayna si ay nabadgelyo